السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الأمام وعليكم السلام. مركز تودوق جوجتين وأنا محمد عيدة. هالكاد إيقظة وناس محمد عيدة. ما أنت برنامج خروج بدنا هذه صوّدا وبرنامج خف كستو يعني ودن كستو حوصا بندقة كلتشر كيسة أما خابكو ديلو أما هدينا خطو إنه عنتيس حوصا بندقة أما هدينا خطو إنه يصاب بندقان ليش ديلا يعني. أنا وحنا خيب هذا لنا إن صاب بندقنا ليش هنا أما كلتشر كان ليش ولنا ساو ديلنا يعني ودن كستو qaabku u dheelo ama wuxuu yahay uu soo bandhigaa kulli Afrikana saddex waxa laga soo qaataa umleena Djibouti, Soomaali iyo Suudaan laga soo qaatay. Halaha kale waxa waaye Turkmenistan iyo Turki iyo kuwii kale Azerbaijan dadkaas ku jiro. Insha Allah barnaamijkan la daawado waa barnaamij aad iyo aad u qurux badan. Anagana meel kasta ka muuqanayna ogtihiin. Barnaamijkan waxa lagu qabanaa Jaamacadda Karabuk University waaye. Ila socda video qurux badan aan kaga soo diyaarin doona insha Allah. Let's go. Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Karabük ilimiz farklılıkları zenginlik olarak gören, hoşgörü ve merhamet çizgisinde birçok millete gönlünü açan bir şehrimiz olmuştur. Nitekim baktığımızda çoğunluğunu uluslararası öğrencilerimizin oluşturduğu yaklaşık 14 bin yabancı bulunmaktadır. İkamet süreçlerinde olduğu gibi geçici koruma ve uluslararası korumada da örnek bir misafirperverlik sergilemekteyiz. Filistin'den Yemen'e, Irak'tan Çad'a kadar gönül coğrafyamızda bulunan birçok insana hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Aslında Türkiye'nin gönül coğrafyasında bir sınır olmadığını bilen ve ona göre adımlar atan bir kurumuz.
haddana saa u jeentiinba waxa waaye guddoomiyaha gobolka Karabog ee ardayda Soomaalida la jooga asaa wareysan doona insha Allah guddoomiye magacaaga horta bismillaahir rahmaanir rahiim magaca horta waa Cabdi Xagwa Maxamuud waxaan ahay guddoomiyaha ardayda ama jaaliyadda Soomaalida ku nool gobolkan Karabog doorashada waqti waxay dhacday maalinta Axadda la soo dhaafay adiga ugu yaraan waxaan hayaa u maleynaa xirka adiga 4 beri meelahaas camal ah maalintii la doortay waxaa jirtay barnaamij jaamacaddu qabanaysay oo ahaa barnaamijka dhaqanka maanta la soo bandhigay wada arkayseen maalintii la doortay waxaan hoos ka galay horaa ka galay waxaan qabaqaabay barnaamijka si yani Soomaaliya uga soo muuqata meesha marka ma dhihin ma u bareeg gareen aan hadda la doorto waxaan ma ogeyn waxyaalaasna ma u bareeg gareen waa qawata wash ma dhihinin waxa waaye calanka in la wada istaaway fiican tahay marka calanka maanta markii la Soomaaliya loo baahan yahay wadamo la tartamaya markii la oo dhaqan iyo dhaqan wax soo bandhigaya isla marka wadankii qabaqaabiyay intii aan sidii karo maanta way ka qayb gali kartaa oo dhaqanka soo bandhigi kartaa ama dhaantaha noqoto ama wax kale ha noqoto waa qabaqaabiyay isla markii إن شاء الله ما أنت نصوب بنك ما شاء الله لا أنت خطر هاي عيار ما شاء الله عيالك كل بحسدين ماشي والله كع هذا ما سنت قدوم
وجودا